dhulkan bannaanka ah waa dhul weyn oo oomana ah sida awgeed waxaa loo sameeyay baraagad yar oo xilliga oomanaha ay biyo ka cabaan waxaana halkan inta badan biyo ka caba xayawaano badan oo isugu jiraan kuwa la ugaarsada iyo kuwa ugaarsadaba ugaartii oo dhan ayaa diday sababtoo ah mid ka mid ah eelada ayaa ku dhacday biyaha taasina waxay fursad u tahay dawacada Afrika oo iyada ka faa'iideysata inta badan xayawaanada aan tabarta lahayn qotada biyaha ma aha kuwa dhow isla markaana waa biyo shamiinda lagu sameeyay oo sibiq leh eeladana maaha mid ka soo fuuli karta sidoo kale labada dawac waxay doonayaan si ay ku qaban lahaayeen maana doonayaan inay ka baxsato waxaan ka kala istaagay labada dhinac hadda eelada waxay qaadatay go'aankeedii ugu qaldanaa ee weeyid ay qaadato waana mid ku horseedaya in maanta laga dhigto qado dirbadii cagaha dhulka soo dhigtayba waxay dhiibatay dhuunta halka oo dawacada ay ku dhagtay ay nahayn doonto ilaa ay nafta ka baxdo eeladu maaha mid isu gurmata ama xitaa isu soo dhawaata kuwa kale ayaa bartooda biyaha ka cabaya kana daaqaya bannaanka isla markaana iska indhitiray mid iyaga ka mid ah oo halkan lagu qabsaday mid ka mid ah waxay haysaa dhuunta oo ah bartii loogu talagalay halka mid kalena ay ku bilowday fiiqida maqaarka haddii ay suurtagal u noqoto inay si haystaan waxay cuni doonaan muddo aad u badan balse dhulkan oo ah meelaha inta badan dugaagga yimaado isla markaana ah meel biyaha laga cabo oo aan marnaba laga maarmin waxay u eg tahay inaanay wada dhammaystiri doonin